kulanti wacan wanaagsan idil ahaantiiba meel kasta oo nagala socotaan halkani waa SDN ku soo dhawaada warbixintii ugu dambeysay ee la xiriidha bedelidda lacagta dalka Itoobiya iyo habka loo soo ururin doono 14 bisha September in ku guda jirno ay dawladda Itoobiya waxay shaacisay inay bedeshay lacagteedii 10 riyaal 50 riyaal 100 riyaal iyo waliba 200 oo cusub dawladda Itoobiya ayaa ku macnaysay tilaabadan inay walwal iyo walaac badan ay ka qabtay lacag fara badan oo forgery ah kuwaas oo la soo galiyay dalka gudihiisa iyada oo dhinaca kale la sheegayo in lacag fara badan oo si sharci darro ah looga dhacay hantida dalka in dad gaari ay gacanta ku hayaan si kastaba ha ahaatee dawladda ayaa soo saartay go'aan ku socda in qof kasta oo Itoobiyaan uu xareeyo lacagtiisa waxayse walwal iyo walaac ka jooga cid kasta oo la timaada lacag ka badan 1 milyan oo bir in la weydiini doono meesha uu ka keenay isla markaana laga qaadi doono muddo 3 bilood gudahooda ayay dawladdu u qabatay in lacagaha lagu soo xareeyo hase yeeshee waxay si gaar ah ciidanka wadanku uga hawlgali doonaan iyaga oo guriye khaas oo la tuhunsan yahay ka hawlgali doonaya goobo khaas ah in cid kasta oo lacag guriga u taala ay ka soo qaadi doonaan haddaba dawladda Itoobiya ayaa waxay sheegtay in ciidanka uu qaadi doono talaabadan isla markaana cidii laga helo lacag 1 milyan oo bir ka badan oo ciidanku ka qaadani doono Dr. Abiy Ahmed ayaa sheegay inuu ciidanku lacagtaas ku soo xareyn doonin bangiga dawladda Itoobiya isla markaas lacagtaas uu qaadani doono ciidanku law enforcement agencies አንደኛ ብላክ ማርኬት ሁለተኛ አየር መንገድ ከዛሬ ጀምሮ በአስቀመጥናቸው አንሰት ያንዳንዷ ሻንጣ ማስወጣት ማስገባት የማይችል በአየር መንገድ ጥብቅ ሴኩሪቲ ይደረጋል። በቦርደር አካባቢዎች ላይ በተለይ ከጅቡቲ፣ ሶማሌ፣ ሱዳን ከፍተኛ ገንዘብ እንዳለ ይታወቃል። በነዳጅ ቦቴ የሚሆን በምግብ መንገድ በተለያየ መንገድ ገንዘቡ እንዳይገባ ሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ በወጣው ዕቅድ መሰረት ከመነሻው ጀምሮ ሰፊ ጥበቃ ያደርጋሉ። ከወረሱ ይወስዱታል። አንፈልገውም እኛ ገንዘቡ ወርሰው law enforcement agencies ይጠናከሩበታል። tilaabadan ayaa horseedi karaysa in ciidanku uu bal jiro shacabka kana qaata hantidiisa sidoo rabana markaa uu dhaco go'aankan iyo tilaabadan xukuumadda Abiy ay qaadatay ayaa saameyn weyn ku yeelan doona qoomiyadda Tigreega iyo waliba qoomiyadda Soomaalida qoomiyadda Tigreega oo la tuhunsan yahay inay jiraan lacag fara badan oo si sharci darro ah dadkooda ay u dhaceen isla markaana ay guryaha u taalo ayaa go'aankani uu saameyn weyn ku yeelan doona isla markaana dadka Soomaalida ah ayaa iyaguna waxay u ganacsadaan si aan ku xidhnayn bangiga dawladda sida xawaaladaha iyo waxyaabaha kale la midka magaalada Wajaale ee ku taala xuduud beenaadka u dhaxeeya Somali State iyo Somaliland ayay dadka Soomaalida ee ganacsatay inta faraha badan ay iskood u ganacsadaan kuna xidhnayn bangiga dhexe dawladda Itoobiya saameyn weyn ayay ku yeelan doontaa in ciidanka lagu fasaxo suuqyada sarifka noocaas ah isla markaana way fududahay in la helo dad Soomaaliyeed oo haysta lacag ka badan 1 milyan oo bir taasoo horseedi karaysa in lagu dhaco dadka talaabadan Dr. Abiy soo saaray iyo xukuumaddiisu ገንዘቡ ለመንግስት ገቢ ነው ብሎ መዘናጋት አያስፈልግም። በዚህ ጉዳይ የሚተኛ ወታደር ፖሊስ ካለ በአገር ሉዓላዊነት ላይ መደራደር መሆኑን ማሰብና የሚያስጠይቅ መሆኑን ከግምት ማስገባት ድንገተኛ ፍተሻዎች ይካሄዳሉ። በተለያዩ በምንጠረጥራቸው ቦታዎች በግለሰብ ቤት የሚሆን ንግድ ቦታ ድንገተኛ ፍተሻዎች ይካሄዳሉ። dhanka kale Dr. Abiy ayaa sheegay in lacagtan forgery ay ka soo gashay xadka dalka Djibouti sidoo kale wuxuu sheegay in talaabadan fulinteeda loo isticmaali doono wacyigelinta bulshada saxaafadaha muqbaahiyaasha ay leeyihiin deegaamada ama kaleeladu si bulshada loo gaarsiiyo go'aankan iyo talaabadan ay xukuumadda Abiy ay soo saartay wuxuu walwal iyo walaac fara badan uu ka taagan yahay in ciidanka Itoobiya loo fasaxi doono inay qaataan wax kasta oo lacag oo ka badan 1 milyan iyagoo guryaha baari doona taasoo horseedi karaysa inay lacag kale oo aan dhannayn lacagtaas ay ka qaataan guryaha dadka shacabka uu leeyahay intan ayaa saameyn weyn ku yeelan doonta ganacsatada Soomaalida khaasatan kuwa magaalada Wajaale ee xarunta ganacsiga ah